السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qofka markay duruufo badan ku furan yihiin ama xaalado kala nololeed ama culaysyo badan marka haystaan dabeecadda ka xumaata. Marka qofka hadii xitaa qof wanaag u dhashay haduu yahay, qof wanaag leh oo dadnimo leh oo akhlaaq leh oo yani qiyam nololeed leh ayaa markay xaalado ku furan yihiin ducadaas haysto waxa ka xumaanaya dabeecadda. hooyo Soomaaliyeed waxay iga sheekaysay inay caruurtu aad u garanaysaa ugu daran tahay ama caruurta ay dilayso ama ay yani culays badan ay ku hayaan ama ay dhib badan kala haysato. Marka waan dhageystay, marka waxaan yar dareemay in ay iyada wax haystaan. Marka waan wareystay, waxaan ku yiri waxa jira adiga culaysyo badan oo kale ku haysta oo dhibaatada kugu keenaya. Markaas ay ugu tiri haa, hooyasho dhashay isugu xigtay oo dhowr sano dhal isku xigtay dhashay, duruufo kale oo dhaqaaleed qabsadeen, xaalado kale oo nolol kale ay la soo darseen. markaan wixii dhugtay baa waxaan ku eeday dhibta adiga maaha, waxaan ka dhex guuxaya ee kugu dhex jira ayaa dabeecadaada dhaqankaaga xumaynaya. haddii aad iskantaroosho oo aad is ogaatay ilmahaaga markaad laas ilmahaaga ilmo xun maaha baan ku iri, hadda ilmahaaga wuu ku maqlaa, hase yeeshee ilmahaaga markaad ixtiraamudaysna kuma ixtiraamayo, markaad maqli weydo kuma maqlayo, markaad si fiican ula hadli weydo si fiican kulama hadlayo. marka aad ila waa qof weeyaan ama ha yaraado ama weynaado ilmuhu dadkan waxa dhici karta in qaar badan ay ku dagmaan ilmaha yar oo 5 jira. ilmuhu markuu soo koriyo qof kasta wuxuu qof baa wanaag dadka jecel ka caawiyo, qof wuxuu jecel inuu kaligiis ku mashquulsanaado, yani qof walba wuxuu la soo gorayaa dabeecadiisa karakterkiisa. marka haddii ilmaha waalidku baran waayo dhib badan bay kala qabsadaan. marka hooyadii waxaan baan ku yiri adiga oo caraysan oo wax ka dhex guuxayaan oo wax kale ugu shidan yihiin caruurtaada ha ka jarin. isku day inaad isdejiso marka caruurtaada la hadlayso oo aad soo ururiso emotionkaaga, yani caadifadaada kantaroosho soo ururiso. ilmahaaga dhowr jeer ha ku celin hadalka. waalid badan kule arrinta way dareemayaan ilmahaagu dhahdad 5-4 jeer ka gaarsiiso waxaan samee. marka dambe canaadin buu ka qaadaya. canaadimaduna qofka waxa ku keenta dhibaatooyin badan. marka dambe qofkan waxba maqal inuu qof waa waalid caasiyo waxba ma maqlo. marka ilmaha in hal mar wax loo sheego dadna waqti la siiyo, waxa dhici karta in wax yar gacanta ku hayo waxa markuu dhameeyay waxaan uu sameeyay waan yar dareemi karaa marka qaar haddii xaalado degdeg ay jiraan. marka waxa ka dhex guuxaya ilmahaaga kula dhicin. ilmahaagu waa ilmo yar, isagu waa sibi waxaan waxba kama oga. hase yeeshee waxaan adigu kugu dhex jiraan ka intercontrolsho dadna hadhowtoole dabeecadaadu wanaagsan adoo istejiyay ilmaha la macaamil. haddii kale dabeecadaadan xun ayaa ilmahaaga ka fogeynayso saameyn kugu yeelanaysa. aad baan idin salaamayaa. Abdul Shakuur Maxamed wasiir Saraydin salaamaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.